السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا ميل والبعد جوكتين واني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن بوك عبد الرحمن أو نقعد السنة أدا يقول عصبتاي صاحبه ولالو سبسكرايب لايك شير إيسار هدا هوري إلي جوكتنا وكم هاسنتين لايك شير أيها المؤمنين ما أنت موضوعي سياسة وكدوية هاي waxaan hayaa sheeko ka dhacday west virginia ee dalka maraykanka qisadaas oo ku dhacday nin bilyaneer ah oo maraykan ah oo marka qisadii baan hadda nii bilaabayaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo. qisada waxay ku dhacday sidaan: ninka maraykanka naag buu qabay 6 sano. naagtii wax ilmo maysa dhalin. markii dambe ninkii wuu fekeray, wuxuu yidhi lacagtan aa haysato iyo ilmo la-aan isma keenayso. lacagtaada dad masaakiina wax ka sii oo tabarrucaad oga dhig si adigana ilaahay uu kugu naxariisto oo awlaad kugu siiyo. ninkii wuxuu tegay dhowr waddan oo afrikada waddamada saxaraa la dhaho oo burkina faso, jad, mali uu tegay. marka maalintii ugu dambeysay uu imaaday waddanka jad wuxuu la kulmay nin shiiq ah oo maskiina oo gaargacan iska wato. wuxuu ka gatay moos iyo waxaasoo ka gatay liimo iyo waxaasoo ka gatay. ninkii waa is wareysteen. wuxuu yidhi niyow mooskan miyaa ilmo ka biilataa? wuxuu yidhi mooskan baa aniga ilmo ka biishaa. ilmahaygana wuxuu yidhi waa 15 ilmood. nin laba xaasla ahay, irsaaqadeeda meeshaanan ka helaa oo ilaahay igu og yahay. marka ninkii wuxuu yidhi maasha allah, ninkaa raadinayaa tahay oo iimaanka ilaahay siiyey. way israaceen, waxay wada aadeen ninkii shiiqa gurigiisii. wuxuu yidhi ilmahaaga itusbal, warkaa ii sheegaysa dees inuu sax yahay in kale, labadaada xaasna itus. shiiqii ilmihii u yeeray. naagan waxay u dhashay 6, naagna 9 u dhashay. bahweyntaa 9 u dhashay. wuxuuna degan yahay 2 guri. aabihiis isaga dhalay wuxuu ahaan jiray former general oo jaad ahaan jiray. marka odaga guriga wuxuu ku lahaa 2 guri buu wuxuu ku lahaa oo aabihiis dhaxal uu siiyo dhul bannaan ah magaalada caasimadda jad, meel u dhow madaxtooyada. ninkii walaalkiis asaga ka yar oo adiga 1 sano meelahaas ka yar wuxuu ka yahay jad wasiir ku-xigeen. bas ninkan marka magaalada jad meel tuulo ku dhegan oo laakiin laga xukumo jad uu degan yahay. dhulna waa ku leeyahay, beero yar yaroo moos iyo waxaas qudaar lagu abuurtan waa leeyahay. 2 guri oo guri afrikaan oo iska taqaanaay oo laamyeeri iyo barmiil ah iyo alwaax ah uu deganaa. meeshaas ilaahay ku sugi jiray. ninkan markuu u imaado uu arkay, wuxuu yidhi niyow 15 ilmood ma waxaa ku biishaa baawuraa leedahay? maya. war ma beeraa leedahay? maya. ma jaada caasimadda jad ma guryi kaaga dhisan yihiin? maya. warani wuxuu yidhi gaarigacankan west africa waxaa laga yaqaanaa gaarigacan lugaha baaskiilka leh oo la riixo buu ninka lahaa. ninkiisuu saas u ahaa. bas wuxuu yidhi aninkana irsaaqadeedii wax walba ilaahay ii saaray, iina barakeeyey, sidii baan ku wataa hawsheeda. bas ninkii wuxuu yidhi niyow waa ku saacideynayaa in maaragtay anna ilaahay muraadkayga ii sahlo, adigana aad faqriga oga baxdo. markaasuu yidhi niyo waaba anna wuxuu yidhi gaaja ay hayso, adigana dee isaacidey, anna ilaahay aan kuu barya. haye waa baxay. ninkii wuxuu aaday. wuxuu yidhi dhul ma haysataa aan kuu dhiso? haa waaye. gurigii dhulkii uu geeyey oo magaalada caasimadda jad meel u dhow. bas dhulkii u arkay, dhul weynuu ahaa. ninkan gaalkaa asagaaba wuxuu ahaa injineer buu ahaa. dhulkiiuu fiiriyey waxa ka soo baxayo. wuxuu arkay in dhulkan ay tahay dhul laga dhisi karo lodge oo qol iyo jiko iyo masquul
oo sida madaxda ay degaan camal ah sidii buu uga dhisay. markaas buu yidhi maxaa la dhihi jiray waa kuu dhisaya waa kuu maalgelinayaa. maasha allah. marka sheekadii maanta halkaasi ku eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sheekada qayb labaad ee leedahay waa inoo mar kale insha allahu tacaala.